السلام عليكم أصحابتك سورة برنامجكن هل دقوا maanta waxaan ka hadlaynaa Dominica waa jasiirad dhacda bariga badda Caribbean-ka ee waqooyiga America beedka guud waxa lagu qaataa 750 kilomitir square jasiiradda ugu dhow ee xuduud leedahayna waa Puerto Rico Dominica waxay ahayd jasiiradii ugu dambeysay oo ay gumeystaan gumeystayaashii reer Yurub waxaana caasimad u ah magaalada Roseau inta badan markaad dhaxdo Dominica qof kastaba wuxuu moodaa inaad ula jeedo Dominican Republic ama Jamhuuriyadda Dominican balse xaqiiqdu waxay tahay inay kala yihiin laba dal oo kala madax banaan tirada dadku waxa lagu qaataa 72,000 qofood Dominica waxaa magacan u bixiyay sahmiyihii lagu magacaabo jiray Christopher Columbus toddobaad kadib markii uu soo caga dhigtay jasiiradan tanna waxay dhacday sanadii 1493 diinta ugu badan dadku haystaan waa diinta Kristanka ma ogtahay in filimka Pirates of the Caribbean qaybtiisa Dead Man's Chest oo ay jilayeen Johnny Depp, Orlando Bloom iyo Keira Knightley in lagu duubay jasiiradda Dominica luqadda rasmiga waa luqadda Ingiriiska luqadaha kale ee la aqoonsan yahay waa Dominican Creole iyo Faransiiska dalkan waxay hoy u tahay 9 volkaan oo furan inkastoo aanu jirin qarax weyn oo ay sameeyeen laga soo bilaabo sanadii 1997 iyo wixii ka horeeyay 1880 qoomiyada ugu badan dalkan waa madowga ama Afrikaanka waddankan waxaa ku yaal harada labaad ugu weyn dunida oo ay biyaheedu kulul yihiin ama ay karkarayaan waxaana shaaca laga qaaday sanadii 1875 lacag dalkan waxa lagu magacaabaa East Caribbean dollar